حكومة عشر شوكتو أو يعني دي كوسي قلقلتي قلبات كواحد ندهنا تبي قبرك الجورعو لوكتي صالح سكيل عليها عيسى موسى ولا لقويني عيسى موسى ولا مشاهد عيسى موسى تدفع البدن سردرد الهيئة عمامات أبا لوجتها كويس كنا في عيد كلام خطوة الصلاة هبين إيام مالي وحنسوتها نسوا وين نسوا قاضية إلهي بام هذه إله أمة السلامين نجدي بام هذه إله رب العالمين كا أي مهض أورا نسقناتي مهندق إلهي كشكو وحمرك لبعض مهندق أيوه بالوين تكر حشيس كنت جودة يا مستبد كودة ما أنت هالك كان نقصوا عسومي مدرسة بلارن جوجلي مناسبة هذه بشرفيت كانوا سميي سلطان أحمد سلطان برحاج حسين عرانة سودوين تيسة يدعى السلطان كهوري ولكن هذا سلطان برحاج حسين الله نحرسته أنت هسي دارن عسومدو آدي بدور على الجودي كان عسوماتين يا مستبد كيلو به والشرف وين بي إن شاء الله ونوتهين نقول ما أنت إلا ما أنت عمامة اللودي بي إنه على مسار سلطان أحمد سلطان بري إلا ما تينا القردادينه ولا بيتنا أقول إنه قردادينا وما هذه هي شغلاتي إتاك بعد ولا ليال وحين كشرنا تبكي عشوه إلهي رب العالمين كهقداتي والفجر وليال العشر إلهي خير كود هاي نسيه إلهي هاي نقو بركيه حبينا قالي اللي كشرنا إنتهاي مكان السلطان أحمد ودي صدح شرف كشرني وحويه وكعيش هدعادين وحين فوض لقلي وأين إن شاء الله بإذن الله الكريم قيد يكون هاي طور الشدي طلقنا إنه وقف صوته حول كلو ينوتها الله هرت ما شرتو وحكولنا نجيسنا ما شرتو قيد بين كلها أنت طور الشدي كهرسن لما أنت ينبع حوجه الرجال مدحنا قبيتكم وإذا أفر لما تكسر حضرتك حنا لنا ولما أنت الناس واقية لنا وأين استاجناه بعدما مدحنا قبيتك يقول ما ضش كسبية هاي نقد قليل إنه يستاجنوا وينهين بوحة وقالوا أيها مرة هي الكبورية وحكلوا الكبورية كل واحد لسبيه واتساب جروب لسبيه سلاديت سوبر لونا dadku culimada qaar baa iska sitaa laakiin salaadiinta rasmiga ah ee xambaarsan karaamadii beelahooda oo dhan u shaqeeyo ee dadkooda ku xidhan maaha mid cadaysimaa ama naasiin aad baa loo xafido guddiga commission la sameeyay nin kasta oo maanta ummad matalaya oo ummadiisana ay maqasho isla maqlo ummadiisa ayaaba meesha kale lagu ururiyay insha Allah bidillah kariim meel fiican ay maraysaa registration code waa socdaa barbeyt cusub lagu soo diraya maxaynu uga daleenahay maadaama ay isku meel wada socono dhamaanteeba madaxna qabeedku oo sidii la kiyaaga ka dhaqaaqay uu sheegay aynu xataa inagu jaangoyna siyaasadda ummadeena deegaamadeena waxa loo baahan yahay geediga aynu ku jirno oo inuu loo kow ka noqono inagu isbedelka dalka ka dhacaya ma ag fadhiisanayno waa isbedelkeenu kow ka noqonayno baahi baa keentay maanta hadday xukuumaddu kaa fashilanto oy fadhiid noqoto waa la arki jiray laakiinse xukuumad dalkii ku duldumay baynu maanta haynaa oo meyd baynu sidaynaa maanta maanta doorasho maahay waa badbaado qaran baa loo baahan yahay aniga whatsappiguu buuxaa qaar baa habeen walba iga soo caaya xalay toola waay waa qaara garanayo cod bay soo duubaan waxay og yihiin geedigan ku socda og yihiin guri kastoon doorashadii 17 tagay waan tegayaa orodii allabari waan ku marayaa wallaahi inaanan xagga eegin haddii caafimaadka ilaahay daayo iigu duceeya caafimaadka aamiina gurbad baan ahay halkan maxamed cabdillaahi cumar doorashooyinkii hore dhacay tana aniga iga fudud baan ku leeyahay axmed siiraayo waryaalehen may maqlaysaan أحمد سيرايو
درات هولا هلك waxaan wada joognaa hudaalka laftigiisa cabdikariin axmed mooga maayarka iyo axmed yuusuf yaasiin baa fadhiyey bal maalintii axmed yuusuf yaasiin oo hor fadhiya daraato oo isla hudaalkan oo maayarka iyo chief caaqilka Rashiid Maxamed Shaabiriyo waxa hortiisa ka sheegay inaan uu laba qodob soo gal ugu Suldaan Xasanow inaad intii xigaliso musharaxnimadayda iyo in aad ka fadhiisay ku tala ummadda Suldaan Allah naxariista Cabdullaahi Abdullah fadhiyo wuxuu yiri Suldaan Xasanow iyo Maxamed Ciise kala socda wuxuu ku jawaabay Axmed Yuusuf Yaasiin ilaa maalintii dhaweeyay sardaradu waa asal ee farc buu yiri sardaradii asalka ayada reer Suldaan Diiriye weeyaan buu yiri garaadni kale idinku farc baa tiino laamii baa tiin marka farc waxa ma weydiinay buu sardaradii reer Suldaan Diiriye jirid ahayd 500 sano jirtaan doonaya buu maalintii dambe ku soo noqday waniga hortiisa idinka lahaa inaan ku yiri maanta mujaahidka weyne Axmed Maxamed Maxamuud Siiraay la dooranayay wal saa loo soco isaguna khayr bi alla ka dhigi doonaayo waad maasatay bigu yiri siyaasadda dacufi maaha wal waxa ku xigo kale waxaan idinka warramay inaan shirki agabar dhiig bax ku tagnay beesha Sacad Muuse oo shirkaasi dirqi loogu qabsoomay waaye Cabdilcasiis Maxamed Samaala ka sheekay waxaan ugu soo kordhay Maxamed Biixi Yoonis oo barnaamijkiisii siyaasadeed ii soo gudbiyey oo shicibiyada qowmiyadda ka dhaxaysa ka shaqeeya oo waxaan raggaasoo dhan loo bireeyey ninka maanta dalka 7 sano hayay waxa weeye maanta saldanada aan hayo ee cumaamada aba looga taag waayay iska dhaaf cid kale oo 7 sano habeen iyo maalin waxaan soo taagnay soo weerar ugu soo qaaday waryaareen laakiinse waxyeel buu islahaayay wax weyn buu tareeba ayaa fahamsanay because maanta anigoo suldaankii labaad ee Sheekh Isxaaqa anigoo suldaankii labaad ee Somaliland caafimaadka ka sii qaaday iyo laba kacleyn ay sanadoodu ka qaaday mooyaan habeen saxar ma gaarsiin mana gaarsiin karto dhagax walba meesha alla dhigu yaala ma cawanayno hadii mar caafimaadkii la hayno insha Allah bismillaah kariim waxa ku soo gabagabeeyay kaga faa'iideysanaya maanta maadaama madal dhaqan ay tahay waxaan hambalyo u dirayaa guddiga dan iyo duco ee uu gudoomiyaha u yahay Muuse Xirsi Abukor Xaaji Muuse Dalab oo dalkan taariikh weyn ku leh oo fac weyn ku leh guddiga dan iyo duco wixii dawladdu qaban jiray bay u qabteen saaxiib tog dheer iyo baroodijeex dhammaan deegaamada Ciise Muuse war maanta farafareyn baa lala dabacay barnaamijkooda waa ka hadli doonaa shalay waxaan ayiday oo gudoomay go'aankii dan iyo duco ee dhigayay in aan beeshu shiri karin ilaa inta doorashadu dhaafayso gudoomiye Ciise Muuse idinka warrami maayo Soomaaliland way taqaanaa ninka doqonimo ula taga ee siyaasad xumo fashil ula taga laf laga aasimayo dawladda laf laga aasay waa geesiyaan Ciise Muuse waan ku faanaa Ciise Muuse waa wada laga weyne Ciise Muuse waa wada mujaahid Ciise Muuse waa dad ficil badan waa dad karti badan Soomaaliland bay saaxiib leeyihiin waana beeshayda beelaha marwal keedaha ku dhaatay kabidii waa xooga kamida xooga Soomaaliland midnimada Ciise Muuse waa midnimadeena guusha Ciise Muuse waa guusheena jida oo jooga bal leeyahay Ciise Muuse xukuumad casir joogto oo yaani ku sii galgalatay galbeedka waxaanu idhaahnaa dibiga marka la gowraco lugtiisa la iska ilaaliyaa ha u jawaabina insha Allah bismillaah waxa ku soo dhaweynaya